madrasada Ramadaan ee magaalada Ceerigaabo ayaa munaasabad bilan u qabatay arday dhamaysatay Qur'aanka Kariimka. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin, macallimiin, waalidiin, arday iyo dadweyne kale ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha madrasada Ramadaan Maxamed Cumar Jaamac. macallimiin, waalidiin iyo arday iyagu soo bandhigay cilmiga ay barteen. hadda waxay marinaysaa insha Allah tacaala inay soo saartay dufcadii labaad ee dhamaysta ama xifdida kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala. taasina waxaan ugu mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala waxaan markaa inala gudboon waxaan kula dardaarmayaa dhammaan waalidiintii nala hayay ardaydan ama nala soo garab galay inay gaadhaan heerka ama martabada ah inay حفظيان كتابك الله سبحانه وتعالى وأنا دعينا يا أرضنا وحنايا وحتى كوي لما يجي كتابك الله لكن هذا هو اللي يقول كتابك الله سبحانه وتعالى ويكرر قالها تعالوا نقدر دارنا يا أرضنا إلى وعينا ولا تداروا وحول تاريخ مدرسة الفراي ومدرسة الفراي لبدي كل أيام كانوا الفراي بدو يكسروا الرئيسي ومعلمين بدر أيام كانوا جري لكن اللي يحوي على الله مركان براسلين أو براسلين محمد لبدي كلنا. فلذو ولا قسمه قبل ودد دين كقلم جبين هاي ويسوق إيمان هاي وهذه ورا وحلا سمين جري مركا علم القرآن كدم يو وحلا ولا بيحجر ولا بنام بيحجر مركا سوق ولا سوق مريض. تي سوق مريض هذا واحد بديش ترى إنه بديش وين حفلة الصبيو وهل تي صعد كهاي فرد اللي قدام ما يهوشي. وهذا ورا القرآن أنت لقاده قصيد لقاده بسوق ولا وريق جري ومركو علم القرآن كدم يو. markuu walfajri gaadhana waxa la oran jiray jisbaxo waa la saari jiray meherada iyo waa la soo mari jiray waa garantii xafladii ugu qiimo badnayd ee laga soo qayb galo maadaama ay tahay xaflad ugu weyn iyo kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dabcan isaga ina amray sabiilin kunta matta bi qulika qalilan innaka min ashabin nar isti'anatu min al-waqt وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه سار الله به إلى طريق الجنة. معلمين أقونتوا ذهاب سرت هذا في درجة ممتازة أرضي أقونتوا ذهاب سرت مدير بقطع معرض صاحب بقى أقون قلبه أنا قلنا تحل ويتستوى عليك. نبي ومحمد نبي عبد الله قاتل وقرآن دين وإسلام الله عزيز جنة العين ديو ما يا أبي يا بردالي ورسول التالي الله عزيز. ugu dambeyntiina waxaa xafladan hadalka isaga dambeeyay isuduwaha diinta iyo awqaafta gobolka Sanaag Sheekh Sacuudi iyo gudoomiyaha rafcaanka ee gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle. ardaydu sida xusuusnaato wali waa da'yar yihiin oo cilmiyadaas inay u leeyihiin way iska suure waxa uu leeyahay waa Ilaahayna ka baqa kitaabkan barateena ku dadaala akhriskiisa ha iloobina jadwal ka dhigta maalin walba waxa ay akhriyaan haddii aan laga dhigan intay la sameeyno la oran waa saacada akhriin jirtay kitaabka quraanka ee uu baxsanaya yoo idin kalluun وخسارة مركب وين باي مريا إن شاء الله. أنت إلهي أيو كيريا هذا البدن مش بيالله وينود عينا عند اللي يرضى وحلينا هاي هلقا كسي وضع سي برتا فهم كيسة فسرات ديسة ودغن كيسة إن عدد كسي برتان إلهي هاي نجارسي لنا هاي والإنتنا وحلينا هاي كود دارا هلقا كسي وضع إذا كنا برتا إلهي دمانتي هاي نقافه كتابك إلهي دمانتي gabagabadiina waxa ardaydii dhamaysatay Qur'aanka Kariimka la guddoonsiiyay shahaadooyin sidoo kalena maamulka madrasada ayaa iyaguna shahaadooyin ku maamusay shakhsiyaad si gaar ah ula shaqeyn jiray madrasada halka ay ardayduna shahaadooyin iyo hadiyado ku maamuseen macallimiintooda. Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Sugulle SBC Ceerigaabo.